asalaamu calaykum soo dhowaada dhammaan saaxiibayaal muuqaalkeena maanta waxaynu kaga hadli doonnaa websayte hadalhayn badan dheliyey kaasoo lagu magacaabo b6.org sidoo kale wuxuu leeyahay ablication ama barnaamij sidaynu wada ogsoonnahay dhalinteenna sannad waliba waxaa lagu dhacaa oo lacagahooda lunsada websaytyo iyo ablikationno aan la hogayn wahayeen haddii aan tusaalahaan u soo qaadano sannadkii tegey ee sannadkii kii oo keliya waxaa la dhacay ama la luunsaday lacag gaaraysa ilaa iyo $250 milyan. markaan sidaa leeyahay laga yaabay dad badan inay maangal noqon weyso oo ay leeyihiin macquul ma ahan laakiin xaqiiqda ayaa ah in barnaamijka TBT ama Tradebot oo keliya ay la tageen lacag gaaraysa $73 milyan. sidoo kale sex iyo 110 ama on10 barnaamij kaloo la yidhaahdo ayagana waxay luunsadeen lacago gaaraya $40 milyan. inta badan barnaamijyadani waxay u badan yihiin oo ay samaystaan dad iskaamaris ah oo doonaya inay dhacaan lacagaha dadka aqligooda la beddeli karo taasina waxaa sabab u ah anagoo inta badan aanu samaynayn research ama baaris sannadkan sii bilaabanaya ee waxaa aad loo hadalhayaa barnaamij lagu magacaabo B6 iyo sidoo kale barnaamij kaloo isagana lagu magacaabo beek haddaan ku hor marno barnaamijka B6 trustpilotkiisa markaan fiirino ma haysto wax rayd ah waa zero raydkiisa B6 shaqooyinka uu qabanayo waa trade iyo exchange sida ay ayaguba sheegeen waxa u horreeya ee websayteka iskaam inuu yahay caddaynaya waxaa ka mid ah inay dadka ku cadaadinayaan inuu akoon ka furto barnaamijka si uu arko faahfaahino kale arrinta saddexaad ee caddaynaysa barnaamijka inuu iskaam yahay waa ma cadda mana soo dhigin liinsigooda ama shatigooda ganacsiga ama sharcigooda ganacsiga waddanka ay ka haystaan haddii aan isla tagno websayte kale ee lagu baadho websaytyada iskaamka sidaad arkaysaan websaytekan waxaa lagu leeyahay dalka indiya sidoo kale founded datekiisana lama oga waa unknown mana haysto wax shati ama sharciyad ah sidoo kale waxaa lagu helay shati been abuur ah oo ay adeegsadeen taasoo iyadana ay tahay dembi aad u weyn ugu dambayn waa inaad ka digtoonaataan oo aad ka taxadartaan B6 oo aad maalgashan lacagahaaga barnaamijka labaad ee ay soomaalidu aad u hadalhayaan ama aad ugu waasheen ee sannadkan bilowgiisa weliba sannad welibana lagu dhaco waxaa ka mid ah barnaamij lagu magacaabo beek oo isagana ay leeyihiin lacagta aad dhigato waxay ku shaqaynaysaa bil iyo wax aynka ah mid ka mid ah wadiiqooyinka laysku dhaco ayayna kow ka tahay midda iyada ah guud ahaan markaan ka hadlayno ama markaan soo koobno hadalka dhammaan websaytyada iyo barnaamijyada dhahaya deposit samey ama investment samey si aad lacagtaada u korodho ama aad lacag u hesho oo aysan haysan wax sharciyad ah waa iskaam ee ka digtoonaada ugu dambayn barnaamijyada beek iyo B6 waa iskaam fadlan ka digtoonaada waxa iga tala ah oo weliba talo walaaltinimo ah haddii aad doonaysaan inaad onlineka lacag ka samaysaan waxaa looga samayn karaa wadiiqooyin badan oo aan lacag kaaga baxayn xitaa inaad lacag geliso iska daayeen intaynu muuqaalka mid la mid aynu dib ugu kulmi doonno alla idinkii waan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo